وحمالنتي شلay galinkii dambe ciyaar aad u xiiso badan ay garoonka Xaaji Daahir Stadium ku dhex martay labada kooxood ee ka kala socda magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama oo kala ah kooxda dawladda hoose Boorama iyo kooxda xanaanada xoolaha ee magaalada Hargeysa waxa ciyaartaasi ka soo qayb galay xildhibaan badan Muuse Gaafane iyo bahda ciyaaraha iyo marti sharaf kale ugu horeyntii ciyaartaasi waxa ka hadlay labada tababar ee kooxahaasi waxay sheegeen reer Boorama soo dhaweysay anagu kulli safar baan martina marka waxaan doonaynaa si wanaagsan oo caqiibo iyo nagu soo tartankan waxa weeyaan anagu waxaan uga galnaa waa isbarasho tartanku labada kooxood hadii nagala badiyana waa caadi hadaan badinna waa caadi laakiin waxaan anaga muhiimaddeedu waxay tahay tartan wanaagsan oo qurux badan inaan ciyaaro ka waxaan leeyahay Boorama aad iyo aad baad u mahadsantahay bismillaahir marka xoolaha maad ilaahay soo xidhaan oo caqabad qabna markay tiin u suurtageliyeen ciyaarta munaasabada la ciyaarno teamka nooga mid Hargeysa ee Duufaan ee kooxda sarda xanaanada xoolaha waa kooxan aad saxaabo noqon mar Hargeysa u soo ciyaaray 20 bishii May insha Allah maanta waxaan rajaynayaa ciyaar qurux badan ciyaarahaasna kullu wuxuu fiican isdhexgalka dhalinyarada haddaan nahay kooxda dawladda hoose Boorama mar kasta waxaan tixgelinaa gobolada loo imanayaan insha Allah soo dhaweyno toddobaadka dambe insha Allah koox waxaan loo doontaa gobolka Laascaanood ka iman doontaa ee Sool iyagana ku soo dhaweyn doona insha Allah waxaan rajaynayaa khayr dhammaan waxaan marka salaamaya cid kasta oo isboortiga xiiseeya waxaan leenahay arrintii soo kale waxaan maanta ku faraxsanahay in geemkan qiibada la garoon oo labada kooxood ay ka kooxda dawladda hoose iyo kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha magaalada Hargeysa runtii ciyaartaas oo ciyaar isdhexgal oo laba kooxood loo qabtay kaabkan hadda arkaysan meesha aad iyo aad baan soo dhaweynaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا وعلينا نوغي من دي كوحدة أبي هرشاء وشارده حلامة حولها يقول الدوشة بورما والحمدليين يا وحمدين الشهور دوادة وشرم رب العالمين وكرر إلهي ومهد لسكوبين كيانين ودشان المركة لبعض حمد الغنية تيم كانوا نصر دوينيا وللينا نوغي مدى مرتدى نوعي نقسم بغري عاصمة يارا وساردها حنانة حولها waxaan kale ay soo dhawaadaan inkastoo inay markan markii ugu horeysay labada tiim wada ciyaaraan insha Allah mana noqon doonto markii ugu dambeysay wada ciyaaraan xiriir xagam ka sii socon doona oo markii labaad maanta koor waxaan ugu soo dhaweeyay tiimka Hargeysa markana waa markii ay noo yimaadeen ay soo dhaweynayna anaguna insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa xaqa ka sii socdo xiriirku sii bato maadaama dhalinyarada ka dhaxeeya isboorti waxaan oran lahaa dawladda xadan baa ku diranaa in la gacan qabto oo sida nimadan oo kale lagu soo xiro wasaarada dhalinyarada gobolka ka jirta intaasaan ku dirnaa assalamu calaykum sidoo kale waxa ka hadlay xildhibaan badan Muuse Gaafane oo ka tirsan xildhibaanada dawladda hoose magaalada Boorama isagoo talooyin iyo dardaaran siiyay ciyaartooyada waxa uu yiri assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaanu joognaa garabta garoonka kubadda cagta xarunta gobolka ee Boorama Xaaji Daahir Stadium waxaa ku wada ciyaaraya xulka kubadda cagta ee ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dawladda hoose ee degmada Boorama labada kooxood baa garoonka garabta ku ciyaar doona hadii la yiraahdo waxaan u rajaynayaa insha Allah ta'ala dhalinyarada ciyaaraysa ciyaar wanaag isku dulqaadasho iyo xilmi inay muujiyaan waxaa guul iyo sharaf ah oo hanaanka dawladnimo ah inuu gobol intiisa soo abaabulo oo gobol kale tago waa hanaanka dawladnimo iyo waxyaabo aynu adduunyada ka iibinayno haddaynu nahay Somaliland nabadgelyada iyo guntiga gabagabadii ciyaartan oo ahayd weerar iyo weerar celis waxay ku dhamaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxda martida loo ahaa ee dawladda hoose Boorama Cabdiraxmaan Jaamacaye telefishinka Rayo magaalada Boorama.